ciidanka bilayska isagoo gudanaya waajibkiisii dastuuriga ah ee loo asaasay wuxuu gelayaa howlgal aan kala go' lahayn oo lagu qaadayo dadka xun ee had iyo jeer warbaahinta sida khaldan lagu hadlaa iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada ciidankaas wuxuu gudanayaa waajibaadkiisa meel kastuu joogana waa loogu tegayaa waa lagula xisaabtamayaa dadweynaha wanaagsan iyo shacabka wanaagsan noo shaqeeya waxaan u sheegaynaa hawsha uu ciidanku gudanayo in gacan ay ku siiyaan waana mahadsantii marka hore waxa ciidanku waa sidii caadada noo ahaan jirtay ciidanku wuxuu isugu yimid had iyo jeer markuu isagoo goor walba subax habeen saacad minid kasta hawshiisa uu qaranku u igmaday wada iyo ilaalinta nabadgelyada ee bulshada reer Soomaaliland haddana waa caado in dhowrkii biloodba mar ay howlgallo culus galaan ciidanka biliisku ma aha caasimadda kaliya dhammaan ciidanka jumhuuriyaddu waxay galayaan howlgallo bariyahan dambe waxa jiray hadallo la isu marinayo miidiyaha oo dad kala taageersan asxaabta qaranka ay marinayaan waxaan kale ka soo falalka ku kacda waxa laga qaadi doona talaabo sharciga waafaqsan waayo wixii nabadgelyada wax yeelaya wixii qarannimada wax yeelaya ciidanka biliisku isagoo kaashanaya hay'adaha kale amniga u dul qaadan maayo sharciga ayuu marinayaa waana u dhex bulshada reer Soomaaliland iyo asxaabtaba waxaan u sheegayaa cid ka soo falalka noocaas ku kacdo oo marka hore didibsan weyda ama ka joog weyda wax qaldanay ku dhaqmaso ee bulshada kala fogeynaya waxaan u sheegay inaan hadhow qaylin oo la oran bilayska qof iska xidhay bilayska caan ka yeelay war waxa leeyahay marka hore u sheega dadka waxa ku kacaya u sheega imaka halkan oramaayo baaris baa gacanta lagu hayaa hebel iyo hebel oramaayo laakiin waxaan u sheegayaa meel kasta joogo goob kasta joogo cid kasta oo falalka noocaas ku kacda in ciidanka biliisku ay talaabo sharci waafaqsan ka qaadi doonaan ma aha howlgalku mid ku kooban caasimadda waa dhammaan gobollada taliyaasha qaybu way daawanayaan warbaahinta sida kalena ee hab ciidanimada waa loola hadlay waxa loo baahayay in qof kastaaba uu ka feejignaado waxyaalaha nabadgelyada qaranka Soomaaliland carqaladeynaya ama wax yeelaya ama dhibaateynaya ama bulshada dhagahooda xumaynaya ee wararka gelinaya ciidanka biliiska u dul qaadan maayo marka inta laga tago waxa kale oo jira cid kasta ama si kasta sifa kasta ha ku soo gabado qofka falalka ku kacaya waxa weeye qofka faafiya war beena ama waxyaalo aan jirin ku faafiya si sharci darro u faafiya ciidanka biliisku talaabo sharci waafaqsan ayay ka qaadayaan waxaan leeyahay war ama marka hore soo afkaaga hayso ama marka dambe qaylada warbaahinta ka daa iyo waa la xidhay iyo waa caynkan ha laga daayo marka dambe warbaahinta yaan la wareerin waxa kale oo jirta ciidanka biliiska ee caasimaddu waxay garan howlgallo ballaaran waxa example haddaan tusaale soo qaato kooxaha dhalinyarada oo in qaar badan la gudbiyay iyadoo afayeen ku faahfaahin doono waxaan uga digayaa cid kasta oo isku dayda nabadgelyada inay wax yeesho in ay ciidanka biliisku gacan bir ku qabanayaan waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa bulshada reer Soomaaliland oo ah bulsho wanaagsan oo xalaal ah oo ciidanka biliiska la shaqaysa oo wax kasta oo arkaan oo dareen ka qabaan u soo sheegay ciidanka biliiska aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa annaguna hadaan nahay taliskii guud ee ciidanka biliiska oo ku hadlaya codka iyo afka ciidanka biliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idka ballan qaadanaa ina sidii hore iyo si kasii ballaaran aan idinku adeegno aan idin ilaalino wax ka soo dareen ka galana asaliga kaydu ku dhow u soo sheegtaan waa la qaban doonaa saa uu tariiqu sheegay haday mar dambe waxa soo kala ku hadlaan wixii qofkii waxa ku hadla waa la xisaabtami doonaa sharciga loo geeyo doonaa inta ka bacdi sidii awal bacaado ahayd ciidanka booliisku waxay halkii isku yimaadeen inay xilkii iyo waajibaadkii ay gutaan oo ah inay nabadgelyada qaranka sugaan inay wixii dambiilaasha soo qabtaan dhawaan waygi dhaweyto ilaa 200 oo ama tuuga noqdo ama rabshaha noqdaan ay xabsiga dhaxay u gudbiyeen ciidanka booliiska xalin taagan inta in leeg ayaa suuqa ku jirta oo shaqeynaysa waa ogtiin xalay iyo habeen horeba rabshadaha ka socday halka dambi booliisku gacan bay ku qabteen imika la way galayaan waxaan uga dignaa cidii rabshadaha ay waxa sameynayso dhawla ogow gacan bir ay booliisku qaban doonaan hadhow ha qeylin waxa dhibaato ma leh ciidanka booliisku halkan inta kale kuma eka sabab tariiqu sheegay gobolada dalka oo dhan hawlgalaha laga fulinayaa waxaana ujeedadu tahay si loo xoojin lahaa nabadgelyada guud ee dalka cidii rabshad wada gacan bir lagu qabanaya sabab tariiqu sheegay waxaan mar labaad mar saddexaad ba amaanay bogaal soo jeedinayna dadweynaha caasimadda waa dad wanaagsan oo sharaf leh oo booliiska si ula shaqeeya sabab tariiqu sheegay anaguna aad iyo aad baan u amaanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh